jaamacadda Camuud haddii aan kaaga sheekeeyo horta jaamacadda iyada Camuud waa jaamacaddii ugu horeysay jaamacadaha la furay faraha badan leh imika waddanka ka jira shuruudo lagu soo galay leedahay shuruudahaasi lagu soo galay jaamacadda Camuud kama mid aha qabiil kama mid aha reer hebel waa inuu haadaa kama mid aha region hebel gobol hebel waynu ka yimaadaa kama mid aha shuruudo ardayda lagu aqbalaa jira jaamacadda Camuudna waxa kale geeska Afrika ardayda ka soo baxdo oo dhan baa gasha Djibouti kolka laga bilaabay Jigjiga la mariyo ee Gaarisa la mariyo Nairobi laga soo rogo ee Ethiopia la soo mariyo waxa ee halka Boorama laga bilaabay Gabiley la mariyo Hargeysa lahad mariso eed mariso Burco eed mariso gobollo farado badan way dhigtaan Puntland kuwa uu bay ka mid yihiin ardayda uu bay ka mid tahay reer Puntland waxay ka mid yihiin kuwa uu bay ka mid yihiin oo dhigno kuwa Gaarisa ka yimaadaan oo dhignaa kuwa Nairobi ka yimaadaan oo kuwa Mareykanka ka yimaadaan oo dhignaa waxaan doonaynaa Afrika oo dhan inay halkan isku timaado wax yar oo kooban oo reer leeyahay ha u qaadan inay tahay Camuudi kolka sheekada Camuud issue yaan laga dhigin issue ama qofku ahaado ama ha ahaado muxuu ahaa xil weyn ha hayo ama se shacab ha ahaade ma jeclin in sheekada Camuud issue laga dhigo lagu yooyootamo midba meeshuu doono la maro laakiin waxaan ni sheegaynaa ardayda jaamacadda Camuud waxay la mid tahay dadka imika masaajid baan ka soo baxnay dadkii ku tukanaya meeshaasi cid ahayaan ma garanayno aamin tuban maqlaynay jaamacadda Camuudna aamin tuban maqlaay cid ay kala yihiin iyo cid ay gobol ka yimaadeen iyo saliyada ka yimaadeen annaga nooma xisaabtana kolka waxaan ku talinayaa umuraha hoos loo dhigo arrinka la leeyahay la doonayo in qabiil loo rogo ganacsato badan baa jirta oo reer Soomaaliland oo Puntland ka shaqeysata dahabshiil baa kamida tuulo wal ama tuulo kasta oo ku taala waxa weeyaan Puntland xafiis buu ku leeyahay waxa jira dad reer Puntland oo xawaarada kule Soomaaliland baa jira hudheelo waaweyn oo imika Hargeysa laga dhisaa jira sidaasi waa sidaynu rabno marka ganacsiga iyo waxbarashada iyaan la siyaasadeynin dadku ha kala xoogsadaan arrinka Camuud hadaan u imaad Camuud munashibiya ma hadee dawladda hoose oo kaadhka dhalashada lagu bixiyo maaha waa iska soo horjeedaan jaamacadda iyo munashibiyada dadka loo abtiriyaa in magaalada uu ku dhashay baa la eegaa lama siiyo kaadhka dhalashada dadka kale ee aan magaalada u dhalan waxbarashadana gaal iyo muslim cidii buuxinaysa shuruudaha jaamacaddu ay leedahay way u furan tahay Soomaali marka laga tago marka waxaan leenahay dadka ragga ku galgalanaya ee jaamacadaha yaan la siyaasadeyn baan leenahay dhibtuna halkay taallay laga sii turkin baan leenahay